kusoo dhawaada taxane aynu ku eegayno qisada filimkii Radium-ka isla magac baxay taasi oo ah safxadaha madow ee warshadihii Radium-ka ahaa isla markaasina aanu ku lafaguri goono ganacsiga xun iyo dhibaatada uu bulshada u leeyahay waana documentary dhameystiran daawasho wanaagsan bishii October 15 sanadkii 1927 saacadu markaa 9 subaxnimo koox raga ayaa soo gaadhay xabaalaha goob u dhow ayayna ka dhisteen taandho waxay bilaabeen inay goobaha ka dhex baadhaan magaca qofka ay siteen oo ahayd gabadha Emilia markii ay gaadheen xabaashii ay ku jirtay Emilia waxay ku bilaabeen qodid wax badan ayaa gabadhii lagu sheegay ka hor dhimashadeeda iyo kadib markii ay dhimatayna waxa lagu sheegay inay u dhimatay xanuunka jabtida markii ay xabaasha ay qodeen waxay soo saareen sanduuq ay ku jirtay ee lagu waasay waxaana la sugayay inay yimaadaan koox khubaro saynisyahanna kuwaas oo soo gaaray goobta 3 galabnimo waxa kooxdaasi la socday Dr. Flian iyo baarayaal gaar ah oo dhammaantood ka soo qayb galay baarista meydka Emilia waxa kale oo goobjoog ahaa xubno ka tirsan qoyskeeda si ay u ogaadaan natiijada baaritaanka naxashka ayay cilmi baarayaashii la galeen taandhada loo dhisay waxaanay ahayd maalin dayr ah oo iftiinku yar yahay haddana waxa naxashka ifinayay iftiin aan dabiici ahayn markii naxashka la furay waxa laga soo saaray magaca Emilia waxaana loo dhiibay aabaheed oo xaadir ahaa si uu u hubiyo in magaca gabadha uu yahay kii saxda ahaa aabaha Emilia ayaa cadeeyay inuu yahay magaca inantiisii dhakhaatiirta ayaana eegay gabadha oo xidhan kabihii madooba iyo dharkii cadda ee lagu waasay haddaba siciidow haddii aynu sheekada sii wadno waxa ay dhakhaatiirtii ku bilaabeen shaqadooda iyaga oo baadhaya sababta rasmiga ah ee ay u dhimatay Emilia dhakhaatiirtu waxa ay baadheen dhabarkeeda madaxeeda iyo feedhaheeda qaar ka mida lafaheeda ayaa loo gudbiyey iyaga oo baadhitaanka u adeegsanaya in ay rajo ka lahaayeen natiijada ay ka soo saari doonaan ugu dambeyntii khubarada iyo dhakhaatiirtu waxa ay soo saareen natiijo dhammaystiran Emiliana waxa ay cadeeyeen in aanay u dhimanin xanuunka jabtida ee hore loogu sheegay haddaba gabadhan waxa ay u dhimatay maxay ahaayeen natiijada ka soo baxday sawirkii la saaray Emilia waxa ay u muuqdeen in ay wax badan ka bedeli doonaan halkan khubaradu waxa ay ku hubinayaan in Emilia aanay u dhimanin waraabowga ama jabtida waxa lagu sheegay laakiin ay u dhimatay waxyaalo kale haddaba waa maxay sababta kale ee keeni karta geerida gabadhani sanadkii 1917 waxa laga dhisay magaalada Orange ee gobolka New Jersey ee dalka Mareykanka warshad samaysa saacadaha waxaana lahaa USA Radium saacadaha ayaa ahaa kuwa astaamo gaar leh waxa ay ahaayeen kuwa goobaha mugdiga ah ka dhex iftiimaya oo si fudud loo arki karo waqtiga ay maraysa saacadu waxaana ay ahaayeen saacado uu noocoodu ka samaysan yahay riyo iyo maado yaab leh oo waqtigaasi aan la aqoonin warshadu waxa ay ku shaqeynaysay bilowgii hore 70 hablood suuqa iyo iibka saacadaha ayaa kor u kacay waxaanay tirada shaqaalaha la gaarsiiyay 400 oo hablood isagalay hablahan ayaa qaadanayay mushahar aad u fiican oo ay ku qanacsanaayeen iyadoo loo arkayay qofka warshada laga shaqaaleeyay inuu yahay qof nasiib leh shaqaalaha ayaa lagu tababaray
sida loo mideeyo gacmaha saacadda iyo gacmaha leh midabada iftiimaya iyadoo la adeegsanayo burush yaro. Waxaa kale oo laga codsaday in burushka madaxiisa ay habeeyaan iyagoo adeegsanaya carabka si naxaastaasi ay u wanaagsanaato. habluhu way aqbaleen amarada bilowga, laakiin waxay ka weydiiyeen nooca walaxda midabaynta ee carabkooda ay ku leefayaan. laakiin hantiilayaasha warshadu waxay u xaqiijiyeen inay ahayd walax aan khatar ahayn oo faa'iido u leh caafimaadkooda iyo in weliba loo isticmaalo daaweynta bukaanada kansarka. hawsha gabadhu waxay ahayd midabaynta gacmaha iyo lambarada saacadaha iyagoo afkooda u isticmaalaya inay ku hagaajiyaan madaxa burushka. laakiin waa maxay walaxda cajiibka ah ee qisada ku jirta? waa radium. waa walax kiimika ah oo shucaac leh oo astaan ay u tahay astaanta radiologiga iyo lambarka 8 midabkeeduna caddaan saafiya. waana mid ka mid ah macdanta dhulka alkaliinka ah ku jirta. waxaa daafuray lamaanaha Biriya iyo Marie Cord sanadkii 1898. adeegsiga maadadan ayaa kor u kacday kadib markii loo isticmaalay daaweynta kansarka. waxaa sidoo kale loo isticmaalay daawada cadayga, qurxinta iyo soo saarista cuntooyinka iyo cabitaanada. sidaasi darteed waxaa jiray cabitaan ay ku jirto radiumka oo loo bixiyey Radiotator, waxaana loo arkayay inuu yahay cabitaan caafimaad leh. waxaana loo tixgelinayay radiumka laftiisu inuu yahay nooc iftiim leh oo lagu dari karo wax kasta.